warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka Ukraine Ruushka ay kaga dhinteen 450 askari. xogayaha gaashaandhigga dalka UK ayaa sheegay in dagaalka Ukraine ay Ruushka kaga dhinteen ilaa iyo 450 askari oo ka tirsan ciidanka Ruushka. Bell Valance oo u waramay idaacadda Radio 4 ayaa waxa uu sheegay in Ruushka ay dagaalkaas looga dilay ay ku ogaadeen xog sirdoon ah oo ay heleen. Ruushka wuu ku fashilmay maxaa yeelay Putin waxa uu isku haystay xoreeyaha balse rabitaankiisu uma rumoobin, ayuu yiri Bell Valance. waxa uu intaas ku daray in ciidanka Ruushka in ay ku hungoobeen qabsashada gigada diyaaradaha ee ku yaala waqooyiga Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. dhinaca kale caasimadda dalkaas ayaa lagu soo waramayaa in lagu arkay taangiyada ciidanka Ruushka. muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay taangiyada Ruushka oo dhex mushaaxaya wadooyinka waaweyn ee caasimadda Kiev. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa xaqiijisay in gudaha ay u galeen mid ka mid ah degmooyinka deegaanka ee magaaladaasi. sawirka ayaana u muuqday mid uu qaaday qof ka mid ah shacabka magaaladaas ee degan. BBC-da ayaana xaqiijisay in muuqaalkaas uu yahay mid sax ah oo laga soo qaaday gudaha magaaladaasi.